Sanadkan cusub ayaa fudud nagu soo haya. Waa fursad dahabi ah oo aad ku dejin karto himiladaada, goolalkaaga, higsigaaga, hadafkaaga cusub ee sanadkan dhowaan bilaami doona. Haddaba, sanadkan waa sanadkii aad naftaada wax bari lahayd. Sanadkan waa sanadkii aad kalsoonidaada sare u qaadi lahayd. Sanadkan waa sanadkii aad awoodi saari lahayd waqtigaaga si fiican u maarin lahayd. Haddaba mudane iyo marwo ka dhig 2025 sanadkii guulaha shakhsiyadeed ay hore u socon lahaayeen ama sare ay u kici lahaayeen. Assalaamu calaykum dhammaantiin kusoo dhawaada Go Fagara Podcast. Magacaygu waa Idonis. Mowduuceena maanta waa sanadkan 2025 sideed uga dhigi lahayd sanadkii wax soo saarka ugu wanaagsanaa noloshaada. Haddaba mudane iyo marwo, mowduuceena haddaan guda galno aan ku bilowno hordhaceena maanta. Sanadkan dhowaan bilaami doona waa bilo cusub oo u baahan mudane iyo marwo go'aan muhiima oo ka go'an tahay si aad u gaarto horumar shakhsiyadeed iyo midaada xirfadeedba. Run ahaantii ka waran haddii sanadkan 2025 uu noqdo sanadkii aad yoolalkaaga higsigaaga ay noqon lahaayeen mid muragala, mid hirgala oo muraha soo sameeya ama ay keenaan. Haddaba maxay noqon kartaa sanadkan? Waxay noqon kartaa sanadkii aad ku beddesho noloshaada. Haddaba podcast-keen maanta waxaan ka hadli doonaa hadafadaada iyo kalsoonidaada go'aanka ka go'an tahay iyo qaabka aad u gaari lahayd inaad samayso muhiimadaada maalinta waqtigaaga, kalsoonidaada dhammaan iyo xirfadaha muhiimka u baahan tahay inaad barato si aad u beddesho ficilkaaga u beddesho. Haddaba han bilowno mowduuceena. Qodobka ugu horeeya waa muhiimadda waa in qofku saaraa waxa loo yaqaano maalinta waqtiga. Waa maxay horta maalinta waqtigu? Maalinta waqtigu waa xirfad muhiima oo run ahaantii aad ku gaari karto guulo badanba haddaad taqaan sida loo maareeyo waqtiga. Guulo badan waxaa ka jirta. Waxaa jirta daraasad la sameeyey 2024 taasoo saameyn 2024 ayaa la sameeyey ayaa muujisay welibana in dadka sida fiican u maareeya waqtigooga ay boqolkiiba 40 ay ka badan yihiin kuwa kale marka loo eegayo wax soo saarkooda. Haddii aad taqaantid maalinta waqtiga waxaa samayn karta waxa loo yaqaano wax soo saarka shaqadaada. Qof waxaa noqon kartaa proactive. Qorsheynta maalinlaha. Haddaba qorsheynta maalinlaha adigoo adeegsanaya waxa loo yaqaano adeegso qalabka loo yaqaano application loo yaqaano Pomodoro technique oo kaa caawin karta in aad ku shaqayso karto waqtigaaga loo yaqaano 25 daqiiqo oo diiradda saari karto waxa aad doonaysid. Tusaale ahaan ujeedo samee, go'aan qaado inaad luqad cusub barato. Waxaad saari kartaa 30 daqiiqo maalintiiba. Waa faydid. Marka aad waqtiga si fiican u maareyso, tallaabooyinka xiga waa in aad diiradda saarto kalsoonida naftaada. Haddaba mudane iyo marwo intaas la fahanay sideed u kobcin kartaa kalsoonida naftaada. Haddaba kalsoonidu naftaada waa furaha in aad guulo waaweyn gaarto. Cilmi baaris la sameeyey 2023 ayaa muujisay in boqolkiiba 60 dadka guuleystay ay sheegaan in kalsoonida naftooda ay door muhiima ka ciyaarto horumarkooda, wax soo saarkooda. Taasi waxay muujinaysaa in si aad kalsoonidaada. Haddaba sidee baad kalsoonidaada u kobcinaysaa ama u kordhi kartaa?
ku bilow mudane marwo ku bilow marka ugu horeysa guulo yaryar tusaale ahaan qorshee in aad tobabar kastaba koorsooyin kasta cusub aad ka hadasho luuqadaha meel baad tagay ama kasoo qaad dadka garanaysid ama dadka luuqadaha yaqaana aad ku hubtid wax garanayaan ayaad waxaad isku dayaysaa markaas inaad kula hadasho luuqadda si aad u u samaysid haddaba inta haddaan la fahanay kobcinta kalsooni inay muhiim tahay marka aad kalsoonidaada barato ama kalsoonidaada aad kor u qaado waxay kuu fududeyn kartaa waxa loo yaqaano in aad barato naftaada adigoo u helaya waxa loo yaqaano adigoo adoo helaya habka ugu fiican ee horumarkaaga intaadan la fahanay mudane iyo marwo haddaba qaabkeed u samayn kartaa barashada naftaada sideed u baran kartaa naftaada waa su-aal muhiima inaad naftaada wax barato waa xirfad muhiima oo kor u qaadaysa madax banaanidaada qof diwa wax soo saar leh oo proactive leh sanadkii 2022 waxaa boqolkiiba 75 dadka waxay isbaray waxay sheegaan in ay si degdega u gaareen ujeedooyinkooda shakhsiyadeed taana waa muhiimo qof markuu leeyahay oo isbarayo uu garanaya meeluu ka liitay iyo meeluu ku fiican waa waxyaabaha u fudaynta soo baxay qarniyaasha ugu dambeeyey inuu qofku wax isbari karo adeegso ilaha waxbarasho ee oran karto meelaha macluumaadka ka helayso sida youtube-ka kursisiga ama application loo yaqaano Khan Academic sida u barato xirfadaha cusub hadalka sida u barato waxa loo yaqaan public speaker hadaljeedinta dadka ama isticmaalka waxa loo yaqaano software cusub taasoo waxay ku caawin kartaa mudane inaad si fiican u hesho barashada naftaada iyo qaabka tusaale ahaan ujeedo sameeyaan hadaf sameyso in aad dhamayso koorsigaaga internetka bisha inaad isku dayina inaad wax ku cad yihiin haddaba intaan la fahanay marka aad barato sida naftaada wax loo baro waa muhiim talaabada xigta in aad isku darto maareynta waqtigaaga iyo kalsoonidaada si aad u gaarto ujeedooyinkaaga cusub ee 2025 qodobkiina afraad waa barashada luuqadaha kala duwan ama labada waa muhiim qarnigan joogno luuqado aad u muhiim yihiin inaad barato luuqado kala duwan ama labaad waa caqabad adag tahay inaad labaad baratay muddo 3 baratay laakiin wax xaqiiqadan ii qabatan waxa qaway laakiin waa mid mahaantii faa'iido badan leh daraasad la sameeyay 2023 ayaa muujisay mudane in dadka aqoonta luuqadaha leh dadka barta ay helaan 50% fursadooyinka shaqo ee lasoo dejiyana dadka badan waxay ku cadeynaysaa haddii aad luuqado badan taqaanto fursadaha shaqo in aad ka fiican tahay kuwa kale haddaba intaad la fahanay ku bilow in aad maalin walba barato 10 eray oo cusub ama in aad tababar kasta hal saac kula hadasho qof luuqadda si fiican u dhashay u yaqaana haddaba luuqadda barashadana ma sahlano inaad luuqad baratid wax sahlan maaha laakiin marka aad baratid aad isku xirto maareynta waqtigaaga iyo kalsoonidaadu waxaad noqon kartaaba qof hawl kasta saddex isku beedisay waxaad noqon kartaa qof karti leh hawshiisa sahli karana qodobkiina shanaad waa tababarka ku saabsan hadaljeedinta dadweynaha waxaa loo yaqaano fanka fayarka hadalka public speaker loo yaqaan waa muhiim qarnigan joogno iminka hadalka waxaa loo yaqaano hadal jeedinta hadalka waxaa loo yaqaano public speakerka dadka aad ku horjeedinaysid waa xirfad cabsi leh marka loo eego cabsi wey laakiin mudanow imaru haddii waa muhiim laakiin waa muhiim oo in la xoojinaysan xirfadahaagi waxaa jirtay 2022 dadka waxaa la sheegaa dadka sheegay in ay
run ahaantii inay ku dhaqmaan ama sameeyaan public speaker-ga hadaljeedinta dadweynaha hortooda. Waxay sheegaan si kasta marka loo eego nacam si taas aad u gaadho waxaa samayn kartaa la sheegaa ku bilow in aad si yar tabar u samayso aqalka gurigaaga aad ku hadashid isku dayid kelmadayda smaashid waxaanoo dhan waxaa la sheegaa hadalka maanta practice maanta aad bilowday ayaa beri noqonaya wax weyn. Haddaba marka aad kalsoonidaada ka hesho hadaljeedintaada dadweynaha hortiisa nacam waa run ahaantii waxaad awood u leedahay in aad noqoto qof waayo aragnimo ay ku suntantahay oo isticmaalaya noloshaada maalinlahaba. Maadaama intaan aad soo samaysay waxaanu soo sheegnay waxaa noqon kartaa qof meel hiigsi iyo himiladiisu weli ku socda oo safarkiisii nolosha weli ku sii jira oo aad yihiin. Waa muhiim weliba waxaa jirta qodob muhiima jiro inaad la socoto horumarkaaga inaad garatid xaggee socotaa xagee ku jirtaa nacam isku day 3 bilood u horeysa inaad garatid waxaad samaysay waxaad qabatay waa inaad buug ku qortid waxyaabahaad gaadhay waxyaabahaad weli gaadhin si ay kuu fududeyso meelaha madow eed weli gaadhin iyo meelaha fiican eed ku guuleysatay. Waa muhiim la socodka ama la socoshada horumarkaagu waxay kaa caawin karaan ama kaa caawin doonaan in aad go'aankaaga waxaad go'aansatay habka uu ku socdo horumarkaad doonaysay mise ma socdo waxaad ku garan kartid. Qodobkeena 7 mudane iyo marwo waxaan doonaynaa hoosta ka xariiqo isku dhaf markaasiba xirfadahaaga noloshaada maalinlaha ma aha wax ayaana maaha waa inaad joogto maalinla ka dhigtis horumarkaaga iyo guushaada iyo xirfadaha bilaabi sanadkan jididka ee 2025 inaad xirfadaada ku darto noloshaada maalinlaha waxay run ahaantii ka dhigaysaa mid joogto ah oo kaa caawin karta. Samee jadwal joogto ah oo aad ku baran karayso luqadahaaga tababarada nolosha loo yaqaano kalsoonida ama horumarka maareynta waqtigaaga. Sanadkii 2020 boqolkiiba 40 dadka ku dhaqmay baa la sheegaa joogtaynta howlahooga yaryar maalinlaha waxay sheegaan in ay gaareen ujeedooyinkoogii sanadka gudihiisa. Waa intaa wax la sheegay sanadka la sheegay oo balonga iyo hadafka dhigtay oo waxa la sheegay waxaanba maalinta maanta bilaabatay ba hadhow isku dhigi doontaa soo socoto isku xigayso ama isku daba xigeen bil maalin bil 2 bilood 3 bilood 4 bilood sanad saambi ku tagaysaa. Haddaba joogtaynta waa furaha guusha marka la doonayo qofka uu doonayo inuu xirfado cusub oo barto oo sameeyo. Haddaba haddaan intaas la fahanay waxaa soo gaarnay gabagabadii mawduuciina maanta 2025 waa sanad gaar u ah ka dhigtid wax soo saarkaaga horumarkaaga weyn u noqdo haddii aad diiradda saarto maalinta waqtigaaga kalsoonida kalsooni naftaada barashada luqadaha kala duwan labada loo yaqaano ama horumarka xirfado kaleba. Haddaba mudane ka dhig adigoo raacaya talaabooyinkan waxaad 2025 uu ka dhigata ama noqon karaa sanadkii ugu wanaagsanaa noloshaada. Waad mahadsantihiin si fiican ay u dhegaysateen saa iyo kulanti dambe waxaan rajeynayaa bilowgii safarka guusha ee sanadka cusub saa iyo kulanti wacan.